السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada daawadayaasheeda sharafta lahow ku soo dhawaada channelkeena umada. Maanta waxaan inoo wadaa qiso ku dhacday gabadh Soomaaliyeed hadii hore Imaaraadka Sacuudiga Ciraaq Suuriya Mareykanka aan dhulka ka sheekeyn jirnay. maanta waa isla wadankii dhageysi waana rajeynayaa in qisadu idin cajabin doonto. gabadhan magaceeda waxa la yiraahdaa Xaawo waxay ku nooshahay magaalo kamid ah wadanka Soomaaliya. ma sii sheegayno magaalada. Xaawo waxay tiri markii aan dugsiga sare dhameeyay ayaan waxaan ishelay amaba iskaba helay wiil aan iskuulka isla dhigan jiray. waxay tiri aad baan isku jeclay xitaa iskuulka waa yara sheekaysan jiray laakiin markaa go'aan waxaan ku gaadhnay inaan iskuursano. waxay tiri reerkaygu waxay ahaayeen reer ladan aabahay dukaan buu lahaa. waxay tiri nolol fiican baan ku soo koray weligay dayac ma arag waana wax Ilaahay loogu mahadiyo. waxay tiri wiilkan reerkoodu wuxuu ahaa danyar. waxay tiri aabahay buu iga soo doontay. aabahayna wuxuu yiri gabadhaydu jaamacad bay dhiganaysaa adeer soo shaqayso maxaad inanteed ku biilaysaa. waxay tiri laakiin anigu go'aanka aabahay waa ka soo horjeestay. waxaan go'aan ku gaadhay inaan la baxsado. habeenada kamid ah la baxsaday sidii adigu isjiid badan waa la meheriyay. waxa uu geeyay guri ay ku nool yihiin hooyadii iyo walaalihii. waxay tiri maalmii hore waa la iska soo dhaweeyay laakiin waxay tiri maalmii dambe ayaa gabdhihii walaalahood waxay bilaabeen inay ila xin dimaashi ay ila xintamaan caayaan igu dhaga hadlaan. waxay tiri hooyadood waxaas oo dhan waa ku aamusantay waa ku aragtaa. ninka markaan dhahdo warda walaalahay iga qabana bay tiri waxay tiri wuxuu yiraahdaa la walaalahay ma khaldamaan hor ma khaldama waa Ilaahay walaalahay iga qabo. waxay tiri waa iska kay dhaga tiraa waa idhaafaa. waxay tiri waxaan bilaabay gurigan ka shaqeeyaa waa la iga soo uskageeyaa ama uskag baa dib laygaga daadiyaa. waxay tiri dayaca aan ku qabo waa lama tirin karo. ninkan ma shaqeeyo. hooyada hadaan u sheego waxay tiraahdaa la gabdhahaygu ma hadlaan. waxay tiri anigoo sidii iskaga dulqaatay hooyadii iyo gabdhihiina igu wadaan wixii dhaga hadalkii hadday tahay caydii hadday tahay afxumadii hadday tahay waan hooyo lay dhaafayn aabe lay dhaafayn walaal lay dhaafayn. bay tiri waan maalmaha kamid ah waxaanu islaynaa isku waboodnay isbadagaalay mid kamid ah walaalihii. waxay tiri midkii kamid ah walaalihii lawa gabdha xaqdara ku socda waan dilay. waxay tiri markaan dilay oohin bay halka xidhatay alla ma nooliyay hooyo walaalo waa idishay. waxay tiri kii ordaya yimi wuuna idilay. waxay tiri dhirbaaxo laad waxay tiri uur baan lahaa alxamdulillah ilmuhu xuma noqon bili ugu dambeeyana waan ahaa. waxay tiri aabahay kuma noqon karo guriga waa ka soo cararay meel aan aado garan maayo. waxay tiri tantu waxay ugu kaliftay inaan halka iska joogo waa dhalay bay tiri. waxay tiri waxa dumarka la daryeelo aniga ayaa guriga oo dhan hagaajin jiray. cunada waxa la karinayay aniga ayaa karin jiray. ilmihii dhinac buu iga ooyayaa dhinac waxa la doonayay in cunada halkaan u soo diyaariyo. waxay tiri noloshii aad bay u adkaatay. waxay tiri anigoo intaas oo dhan iskaga dulqaatay ayaa haddana ninka wuxuu bilaabay isbedel. waxay tiri wuxuu bilaabay inuu cadar intuu isku shubo casarkii baxo maxay tiri marmar maqribkii baxo. waxay tiri waxaas oo dhan aniga waxa igaga daran ninkan isbedelkiisa. waxay tiri waxaan oo dhan ima muuqdaan laakiin ninkan isbedelkiisa ayaan aad baan ula yaabanahay. waxay tiri ilmihiisa caano keeno wuxuu helana bay tiri hooyadii iyo aabihii iyo gurigaas soo dhexdhigaa aniga bay tiri dhaash iska daaye dirac ima keeno. waxay tiri intaas oo dhan ugu dulqaato misna isbedelka markay ku arkay waxay tiri go'aan waxaan ku gaadhay inaan bal hadda ninkan daba galo. waxay tiri galbaha kamid ah bay tiri buu maqrib buu isku beegay inuu baxo cadar buu isku sii shubay dhaxdu iska sii xidhay. waxay tiri ana waa daba galay bacdi bay tiri markii aan daba galay waxaan arkay ninkii oo galaya guri aad u weyn
waxay tiri uu galay cabaar markii uu ku jiray cabaar dhan baa yacni ninkii wuu soo bixi waaye hore u soo bixi waaye waxay tiri anigiina meel aan joogo waa garan waaye gurigii baan ku garaacay ilmo yar ba iga furay waxaan ku idhi gurigan ninkii soo galay mee waxay tiri ilmo wuxuu idhi ma abti guriguu ku jiraa waxay tiri waaba dhaafay waxay tiri waxaan arkay isagii oo naag meel la fadhiya waxay tiri markii uu arkay wuu argagaxay yacni wuu shoog buu kusoo dhawaaday maxaa ku helay maxaad soo doontay maxaad halka soo doontay naagtan waxay leedahay waayo naagtani waxay tiri ninkii baan bacdii bay tiri ninkii aan wixii oo dhan u soo maray bay tiri intuu yidhi naayaa waramkuu sheegaa anigu gabadhan waa gabadhan qabo waa xaaskayga waa kaa dambeysay caruurtan nin hore u dhashay ninkii waa dhintay gabadhani dee yacni waa gabadh hanti leh bay tiri adigu si cad iguma odhan laakiin waa iska muuqataa inuu hantideeda ku raacay adiga iyo ilmahana dhashayna ama halkiina ku noolaada ama waad iska tegaysaan haddaad xitaa tagtaan aniga wax muhiimada ay ii leedahay ma jirto buu igu yidhi waxay tiri adduunkii meel aan joogo waa garan waaye waxay tiri oohin halkiiba marna waan ooyaa mar bay tiri waan ciishoodaa ninkii aan yacni waalidkay dartii uga imi ninkii aan reerkayga uga go-ay waxay tiri dantii waxay igu kaliftay inaan gurigaygii ku noqdo waxay tiri anigoo qalbi jabsan waxay tiri waraaqdayda waa ii soo diray waxay tiri taas ayaa waxay igu kaliftay inaan tahriibo waxay tiri nolol aad u daranayaan iyadana tahriibta kala kulmay alxamdulilah bay tiri haddar waxaan joogaa Yurub halkaas bay tiri nolol fiican haddar ku noolahay ilmahayga yaraa waan u dacwooday waan haystaa waxay tiri alxamdulilah haddar nolol aad u fiican ayaan ku noolahay waxay tiri laakiin qisadan waxaan idinla soo wadaagay si aan uga digo gabdhaha dabadaya waxay tiri weligiin ha raacinina wiil yar oo aan waxba haysan kaaga daranta wiil yar oo laysku kiindiiday weliga hala baxsanina diiniyan waa xaraan waalidkaa waad kaga murugoysiinaysaa waxay tiri gabdhaha iga dambeeya ayaan u sheegayaa talo iyo tusaale si aan ugu noqdo oo aanay ugu dhicin dabankii aan ku dhacay halkaa ayayna kusoo gabagabaysay gabadhan qisadeedii waan rajeynaya inaad ka hesheen qisada channelka subscribe saar gambaleelka furo videoyadana like sar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.